marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal oo 3 bishan ku geeriyooday magaalada Pretoria ee dalka Koonfurta Afrika. waxa uu halkaasi u tagay toddobaadkii hore howlo caafimaad kadib markii uu xanuunsanayay muddo 3 bilood ah. arrimaha kale ee wararkan soo gaaray hadda waxa kamid ah in dawladda Koonfur Afrika ay hadal ka saartay geerida maxamed ibraahim cigaal iyadoo sheegtay in ay ka naxday geeridaas. geerida marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal waxay dadka inta badan ku noqotay lama filaan iyo tiiraanyo. magaalada Boosaaso jaamac cali jaamac ayaa isaguna faagsi tacsi ah ka soo diray waxaana uu ku tilmaamay maxamed xaaji ibraahim cigaal oo baal dahabaha uu kaga jiro taariikhda Soomaalida. cabdilaahi xaaji oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda BBC-da ayaa waxa uu ku tilmaamay Mr. cigaal nin isagu aqoon dheer u lahaa siyaasadda dunida deeqsinimana u dheeray. waxay kale ku tilmaameen inuu ahaa nin gacan furan oo siyaasadda iyo dadka Soomaaliyeedba aad u yaqaanay nin naxariista isla markaana bulshay ah. haddaba wariyaha BBC-da Shaadiye Maxamed Rooble oo goobjoog ka ahayd halka uu ka dhacay aaska ayaa Axmed Saciid Cige uu telefoonka kula xiriiray wuxuuna weydiiyey in ay nooga waranto sida uu u dhacay. waxa uu u dhacay si aad iyo aad u ballaaran. Seen Maxamed Faarax Aydiid Aadan Gabiyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed Muuse Suudi Yalaxow iyo Maxamed Dheere waxay dhammaantood tacsi u dirayaan qoyskii iyo qaraabadii maxamed xaaji ibraahim cigaal uu ka geeriyooday. waxayna ilaahay ay uga baryeen in uu naxariistii janno ka waraabiyo. tacsi taa lamidana waxaa gaarsiinaya garaad cabdiqani garaad jaamac iyo garaad Suleymaan garaad maxamuud iyo boqor cabdilaahi axmed iyo garaad ismaaciil ducaalem maxamed ibraahim warsame xadraaw xaaji dhamac gaariye cabdi aadan xaad cabdi qays axmed naaji sacad xasan aadan samatar iyo daa'uud cali masxaf waxa ay tacsi u gudbinayaan eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee maxamed xaaji ibraahim cigaal.